maniinta markuu yiraahdo diyaafadaydu waxaan iga bilaabayaa miisiqa jannada ni maqashinaya miisiqa marka sawdkiisu uu bilaamo geedaha jannada ku dhex yaalo dhan baa dhaqaaqaya يتلذذون ويتمايلون شيء ما رأوا مثله في الجنة. بعد ذلك الله ينادي يا أهل الجنة اطلبوا ماذا تريدون هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد اطلبوا ماذا تريدون. markaasay geedahan u ruxmayaan bini aadamkuna way ruxmayaan laana waligoodii allahood miisiqa wax ka macaan ifka kumay soo maqal dhagahooguna ma maqal markaasuu ilaahay odhan doonaa i weydiista ahlul janna maanta waa maalintii wax la biirinaya nicmada la biirinaye waxaad doontaan i weydiista waa nii biirinay baa ilaahay odhanaya. يقولون يا ربنا كلهم متفقين يا ربنا نريد أن نسمع كلامك وذكرك العزيز. markaasay dhammaantood ahlul jannuhu odhanayaan ilaahu waxaan maanta doonaynaa oon jecelahay inaan dikrigaaga iyo hadalkaaga inaan maqalnaan doonaynaaye hadalkaaga ilaahuna maqashii bay odhanayaan. والله يقول لكم فيها ما تشتهي أنفسكم وأنتم فيها خالدون. لكن قبل أن نسمعكم صوتي عندي أصوات نسمعكم إياها. يا داود ارقى المنبر واقرأ 10 الصور من كتاب الزبور وصوت سيدنا داود عليه السلام 900 مزمار في الحسن والجمال. markaasaa ilaahay odhan doonaa ahlal jannow maanta waa maalintii layna yidhi waxaan naftiinu ay doonto ayaad leedihiin waxaad dhegtiinu ku raaxaysatana waad leedihiin waxaad dalbataan oo dhanna waa laynii yeeliye laakiin horta waxaa niiga bilaabayaa baa ilaahay odhan doonaa inaad horta aad maqashaan nebigaygii daa'uud calayhi salaam sawdkiisii dhegaysta. markaasaa ilaahay nebi daa'uud odhanayaa mambarka fuulo 10 suuradoodoo zabuur kutubta kitaabkaagii zabuur ka mida maqashii baa la odhan doonaa. nebi daa'uud calayhi salaam sawdadka bini aadanka ilaahay uu siiyey 900 oo sawd ayaa ilaahay caza wajalla nebi daa'uud ku arsaaqay. لما يقرأ داود عليه السلام الجنة بما فيها تتمايل من حسن داود عليه السلام. أهل الجنة تسأل عن أحوالهم في اللذة والحلاوة. بعد ذلك الله يسألهم يا أهل الجنة هل سمعتم صوتا أحسن من هذا؟ يقول لا يا ربنا. الله يقول جل وعلا ما زال عندي صوتا أحسن من هذا. من يا الله؟ الله جل وعلا ينادي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم ارقى المنبر واقرأ سورة طه وياسين. وصوت الحبيب المصطفى 70 مرة أفضل من صوت داود عليه السلام. لما يقرأ حبيب الله سورة طه وياسين الجنة كلها تتحرك أشجار الجنة تتمايل بحسن صوت الحبيب المصطفى. صلوا على النبي. نبي الله داود عليه السلام markuu akhriyo 10 suuradood oo zabuur kamida ayaa waxa geeday ilaahay jannada ku abuuro dhan wada dhaqaaqaya markaas bini aadamku dhaqaaqaya markaasuu ilaahay odhan doonaa yaa ahlal janna waligiin iyo allihiin ma maqasheen sawdka wanaagsan maad maqasheen markaasay odhanayaan ma maqal markaasay ilaahay odhan doonaa mid kala jira oo ka sii macaan oo ka wanaagsan ee maanta isagana maqla markaasay ilaahay odhan doonaa awe xabiibkaygii Muhammad calayhi salaatu wassalaam markaasay nabigeena Muhammad baa ilaahay u yeedhayaa mambarka fuul baa la odhanayaa markaasuu nabigeenu akhrinaya suuratu Taha wa Yaasiin sawdka nabi Muhammad calayhi salaatu wassalaam sawdka nabi Daa'uudna 70 dicfi ayuu nabigeenu Daa'uud ka sawd fiican yahay markaasaa khalqigii jannada ku noolaa ilaa basharkii oo dhan ilaa geedihii oo dhan markaasay dhinaca u dhaqaaqayaan kolba dhinaca u dhaqaaqayaan iyagoo dhagaysanaya ku raaxaysanaya sawdka nabigeena Muhammad calayhi salaatu wassalaam. لما ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ينادي يا أهل الجنة هل سمعتم صوتا أحسن من هذا؟ يقولون لا يا ربنا. الله يقول ما زال عندي صوتا أحسن من هذا. من يا الله؟ الله يقرأ كلامه بنفسه. markaasuu ilaahay jalla wacala odhanaya ahlal janna waligiin iyo allihiin ma maqasheen sawdka wanaagsan may bay leeyihiin markaasaa ilaahay odhan doonaa mayna maqashiyo haddana sawdadka aad maqasheen sawdka sii macaan oo ka wanaagsan markaasay odhanayaan haa ilaahuna maqashii إله رب العالمين جل جلاله أيا كلام كيسي آخرنا يقول شيخ. في رواية سورة الرحمن وفي رواية سورة الأنعام لما يقرأ الله جل وعلا العرش يهتز بحار النور تتمايل وتتحرك محلا ملائكة الروحانيون كل شيء يتحرك. أهل الجنة غابوا عن وجدهم. وعولي مركز بعد الروايات وحكوت من سورة الرحمن بإلهي آخرنا يا علماء حديث تقرأ سورة الأنعام بيدادين ولكن إلهي جل وعلا مركو كلام كيسي آخريو وخالق إله خلقي قدنا أبوري ويان كم يا إلهي كلام قيس الله معان سنة يا لذي معان هي قرب من الله لقاه ليا أهل الجنة النعمة دي جنة ودن بي إلو بيان خلقك جنة ودن بأمرك لي وضر دقاقة يمرك كلام كلها يا مغلان. أهل الجنة ما رأوا صوتا وحلا لذة وحلاوة مثل ذاك الوقت عندما يقرأ الله كلامه. إلهي هذا القيس مركو كلام قيس آخريو أهل الجنة هو اللي قودي الله ضمين المغل صوت كم عن صوت إلهي عز وجل.
بعدها الله تبارك وتعالى يقول يا أهل الجنة قبل رجوعكم إلى قصوركم نعطيكم هدايا لكي ترجعوا إلى قصوركم. النساء يروا مثل ما يروا الرجال ويسمعوا مثل ما يسمع الرجال. markaasaa ilaahay ahluljannaha odhan doona ahluljannow inta aanad ku noqon jannadiinni iyo guryihiinni iyo qusuurtiinnii miyaad jeceshiin inaan nii ziyaadiyo nii biiriyo. markaasay ahluljannuhu ragguna siday ragguna u arkaan ilaahay caza wajal, sida ragguna ilaahay u maqlaan ee raggu waxay arkaan u arkaan ayay dumarkuna dhinacooga wax walba uga arkayaan, wax walba uga maqlayaan. أي هدية الله يعطي. الله تبارك وتعالى يقول يا أهل الجنة الآن سأعطيكم هدية لا مثيل لها. يرفع الحجاب عن وجه الكريم ويقول يا عبادي من أنا، يا عبادي من أنا، يا عبادي من أنا. الله يجيب ويسأل من أنا، من أنا. لا يستطيع أحدا جوابا. جفن العين مفتوح والفم مفتوح في النظر إلى وجه الله. من أنا؟ ما لا يستطيع أحدا جوابا. الله يجيب عن نفسه يا عبادي أنا الإيمان وأنتم المؤمنون، وأنا السلام وأنتم المسلمون. هذا كلامي فاسمعوه وهذا نوري فانظروه. سبحان الله. إلهي عز وجل أهل الجنة وحو كورن دونا مانتا هديد بان نسينا يا هديد أي نسينا يا هديد دا سوا محي حجابك النوراني إلهي أضمها أدحيا أي إلهي جل وعلا إسك قاضيا. مرقاس أهل الجنة waxay eegayaan ilaahay bay eegayaan nicmadii jannada ay ku haysteen bay iloobayaan. markaasaa ilaahay odhan doonaa ayaanahay anigu, cid hadlaysa oo jawaabaysa ma jirto. markaasuu odhan doonaa ayaanahay anigu. markaasaa la aamusayaa ahluljannuhu, indhahana way kala qaadayaan, afkana way kala qaadayaan. markaasuu ilaahay odhan doonaa ana aliimaan, anigu iimaankii baa nahay, ininkuna kuwii rumeeyey baa tihiin. anigu salaamkii nabadgelyadii baa nahay, ininkuna muslimiintii baa tihiin. ilaahay caza wajalla markaa xijaabkiisu iska qaadaya. ما أعطوا شيئا أفضل من نظر إلى وجه الرحمن جل وعلا. aragtida ilaahay caza wajal ay arkeen waxay ka jecel yihiin ee uga jacaylo badan yihiin ahluljannuhu ma arag. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ما قال الشمس كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هناك العصر والصبح يا من تريد النظر إلى وجه الله. هذا حديث صحيح. dayaxa afar iyo tobnaadka sida loo arko ayaad ilaahay u arki doontaan buu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam. cadceedda nebigu ma odhan, wuxuu yidhi dayaxa, laana dayaxa eegii aragtidiisa waa la eegi karaa ama cadceedda lama eegi karo. markaa dayaxa afar iyo tobnaada buu nebigu le saaad u arkaysaan ee qofna qofka kale aragtida dayaxa uu iskaga qarinaynin ayaad maalinta qiyaamaha rabbigiina u arkaysaane. haddaad kartaan baa nebigu leeyahay salaada casr iyo salaada subax in layniga qaalib noqon oo ayni dhaafin ku dadaala buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. gabadha muslimadda iyo ninka muslimka ee labadaa salaadood dhayalsanaya aanan jamaca soo xaadirayn ama aanan tukanayn aragtidii ilaahay buu iska xarimay ka dhigan tahay. فيا إخواني وأخواتي بعد ذلك ماذا كم سنة كم وقت ينظر جمال الله. بعد ذلك الله يرجع الحجاب عن وجه الكريم. بعض الناس رجال ونساء لا يريد يمشوا إلى قصورهم، يريد يبقوا ينظروا جمال الله. ما أحلى النظر إلى جمال الله جل وعلا. الله خالق الكائنات نراه بالعين. اللهم دم علينا واعطينا هذه النعمة. maaha maalin iyo laba maalmood, sanawaad boqolaal sano ay ahluljannuhu ilaahay aragtidiisa daawanayaan oo aragtida ilaahay caza wajalla way ku farxayaan, way ku raaxaysanayaan. qaar khalqigii halkaa joogay bankaa ilaahay la joogay markay ilaahay arag wejigiisa iyo nuurkiisa ay arkaan nicmadii jannada ilaahay ku siiyey bay iloobayaan. qaarkood noqoni maayaan, dhaqaaqi maayaan. limaada? laana aragtida ilaahay jalla wacala nicmad ka weyni ma jirto ee kuwa ilaahay jannada ku dhex arkay ku raaxaysa aragtidiisa allah inaga dhigo. صلوا على النبي. allahumma salli ala هذه الثانية يا أهل الجنة ارجعوا إلى قصوركم فإني زدت في حسنكم 70 ضعفا وإني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ markaasaa ilaahay odhanaya ahluljannow hadiyadda koobaad waa aragtidaydii weeyaan, hadiyadda labaadi waxa weeyaan noqda baa ilaahay odhanaya qusuurtiinni iyo halkaad deganeedeen ku noqda. jamaalkii quruxdii aad ila timaadeen 70 jeer baa inii labalaaboon inii biiriyey, weliba ridahaygiina waa nii xalaaleeyey, waa niga raali noqday, iniku raalli maad iga tihiin baa ilaahay odhanaya. آخر هدية لأهل الجنة رجال ونساء رضاء الله لا سخط بعدها. ولكن الصحابة والصحابيات اسمعوا، الصحابة والصحابيات حصلوا الرضا في الدنيا قبل الموت. بماذا؟ بسبب أنهم أعطوا 4 طاقات: طاقة فكرية، طاقة جسمانية، طاقة مالية، طاقة علمية سلموها لدين الله، فالله رضي عليهم في الدنيا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. hadiyadda ugu dambaysa ahluljannuhu ay ilaahay ka qaataana jannada kula noqdaan waa ilaahay caza wajalla oo ridihiisii u xalaaleeyey oo maalintaa intii ka dambaysa aan u cadhoonaynin. mu'miniintu waa hadiyadda u dambaysa
ee jannada dhexdeeda lagu siiyey ridaha ilaahay. walaakiin saxaabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waradia allahu canhum adduunyada dusheeda ayaa raggoogii dumarkoogii ilaahay raalli kaga noqday. ilaahay baa qur-aanka ku sheego yidhi raalli baan ka noqday, iyakuna raalli bay ga noqdeen. goormaa saxaabada nebiga ilaahay raalli ka noqday? 4 quwadood oo ilaahay geliyey markay diinta ilaahay u isticmaaleen baa ilaahay raalli ka noqday. daaqada maalka, quwaddii maalka iyo quwaddii caqliga iyo quwaddii cilmiga iyo quwaddii jidhkooga, 4taa quwadood markay diinta ilaahay geliyeen ayaa ilaahay adduunyada raalli kaga noqday. بالله عليكم إخواني وأخواتي، أين طاقة الفكرية للرجال والنساء في هذا الزمان؟ فكرنا من الصباح إلى المساء، ماذا نلبس؟ ماذا نأكل؟ ماذا كذا؟ ماذا كذا؟ ماذا كذا؟ أين فكرنا للدين؟ المسؤولية اللي كلفنا بها رب العالمين. والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا شغلهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. waxaa yidhi maanta quwaddii ilaahayna geliyey halkeen gelinay buu yidhi maanta halkeen gelinay halkeen u isticmaalnay quwaddii fikirka. rag iyo dumar maanta fikirkeenna wuxuu noqday maxaan cunaa, maxaan gashadaa, halkeen galaa, maxaan ciyaalka siiyaa, anu maxaan ku noolaadaa. daaqadii ilaahayna geliyey oo dhan waxaan u isticmaalna maaragtaan adduunye aan qiimo lahayn. إخواني وأخواتي، هذا أعداء الإسلام رجال ونساء، كيف يتجولون في العالم في إفريقيا ويأخذون الرز والأدوية ويخرجوا قرى كاملة من الإسلام والمسلمين والمسلمات من الصباح المساء، ماذا نأكل، ماذا نلبس، ماذا كذا. أين فكرنا؟ أين فكرنا؟ gaalada kuwa cadawiyada ilaahay cadawiyada nabigeena calayhi salaatu wasalaam raggoogii dumarkoogii ma fadhiisanayaan, bal waxay ka fikirayaan oo fikirkoogii quwadooda u isticmaalayaan sida dadka muslimiinta adduunyada ku nool ay islaamnimada iyo nuur alislaamka noloshooda uga saari lahaayeen. amaa innaka maanta rag iyo dumar maanta quwadeenni waxaan u isticmaalnay maxaan gashadaa, maxaan cunaa, maxaan ku sixdaa, maxaan xidhaa. اسمعوا إخواني وأخواتي، أن قصة في كاميرون قصة وقعت حقيقية. كاميرون واحد من البلاد الإسلامية بنوا مركز كبير وجعلوا عالم يدرس الأولاد ويصلي بالناس ويعلم الأولاد والبنات الإسلام والقرآن. فأرسل رسالة إلى ابن عمه في بلاده، قالوا تعال عاوني، لأن الطائرات كل يوم أعداء الإسلام رجالا ونساء بجميع الوسائل يخرجوا قرى من الإسلام، تعال عاوني شوية لجهد الدين ودعوة الإسلام. فجاء لي 15 يوم، ما كمل 4 أيام إلا بالمشقة، فيه البعوض فيه الحرارة. ولما أراد يرجع بعد 4 أيام ذهب للسوق يشتري بعض الأغراض. اسمعوا هذه الكلمات مهمة جدا. wuxuu yidhi waxaa nii sheegaya qiso ka dhacday wadannada afrikada ka mid a waddanka cameroon la yidhaah. manaadiqda islaamku ay u badan yihiin ayaa markas islaamiya weyn laga dhisay.